hooyo nuurkeedii, waxaan cidleeyay hooyo qalbigeedii. Muddo 20 sano maanan wicin hooyaday, sidoo kale maanan arkin. Waa qiso xanuun badan oo meelo fara badan taabanayso. Qisadaas ayaan idiin soo gudbi doonaa. Inta qisada aan wado guud ahaanba fikirkaada iyo nuxurkaada iyo jir ahaanba haddii ay ku bedesho waxaan ku leenahay ka raali noqo. Waa muhiim inaan qisadan u soo gudbino bulshadeena si wax badan ay ugu faa'iidaan. Qisada waxay ku bilaabanaysaa sida tani. Nin ayaa wuxuu dhahay muddo 20 sano maanan wicin hooyaday, sidoo kale maanan arkin. Maalin maalmaha ka mid ah ayay xaaskiisa isqabteen oo ay 20 sano isqabeen. Xaaskiisa markay isqabteen oo ay wada sheekaysteen ayay dhahday, caawa wax ayaan kaa codsanayaa inaa ii samayso ayaan rabaa, haddii codsigayga aad tixgelinayso. Markaas ayayna xaaskiisii waxay ku dhahday, caawa waxaan rabaa inaad soo booqatid hooyada oo muddo aadan soo booqan, oo aad sidoo kale meel maqaaxiha geysid si jawi degan u soo qaadatiin. Wiilkii qalbigiisa aad ayuu isku bedelay xaaskiisa asagoo tixgelinaya ayuuna isla markii go'aan ku gaaray. Isla markii hooyadii ayuu wacay. Hooyadii markii ay qabatay taleefankii dhawaqi wiilkina ay maqashay, isla markii waxaa ka soo burqatay ilintaas ka soo burqata ayana waxay ahayd naxariis, sababtoo ah wiilkeeda ma aysan maqlin codkiisa muddo 20 sano ah. Aragtidiisana sidoo kale ma aysan arkin. Hooyadii oo naxariis badan ma aysan ku qeelin, hadal xumaanna wiilkeeda ma aysan dhihin. Isla markii hadalay gocosho waxay ku bilowday, alla wiilkeygii oo ma iga xanuunsan tahay, mase qoyskii ayaa xanuunsan, mase caruurta ayaa xanuunsan ayay dhahday. Allo naxariis badana oo hooyo qiimo badana oo wanaag badana. Ilaahayow hooyo la'aan hana dhigin dunidan. Hooyo la'aan waa iftiin dunidan aan harsi lahayn. Hooyadii ayaa markii ay sidaas ku celisay aadna u ilimeynayso oo dareenkeeda celiweysa oo wiilkeedina xiiso u qabto oo hadalkii markay maqashana farxadna qalbiga ka ooynayso, ayaa hooyadii waxay ku dhahday, intaas haddaysan jira maxaa jira? Markaas ayuu dhahay, hooyo waan jeclaystay inaan ku soo xasuusto, mashquul adduunyo ayaa ila tegay, 23 sanana kuma soo wicin. alla afkiisa fiiri oo ficilkiisa xumaa oo dareenkiisa xumaa oo isla sii garlaha. Markaas ayay hooyadii dhahday, alla wiilkeygiyow waan jeclaay oo adigaba waad jecleed inaan is aragno, laakiin mashquulka adduunyada iyo howsha aad iskaga fara badan ayaa ku mashquulsaneed, ayay hooyadii dhahday ayada oo wiilkeedii qalbi uu sii wanaajinayso. Wiilkii ayaa markaas wuxuu dhahay, hooyo waxaan rabaa caawa inaan ku soo maro maqaayadaan isla aadno, isla soo casheeno, waqti qurux badan aan isla soo qaadano. Hooyadii aad ayay u faraxday. Markaas ayay dhahday, hadal farxadiisa wanaag qiimihiisa ayaad wiilkeyga ii sheegtay. Sidaan u farxay weligay maanan u farxin. Uur ku taaladii igu taalay 20 sano ayaad iga fujisay, oo hadda caawa ma wiilkeyga ayaan waqti la qaadanayaa, ayay hooyadii dhahday. Markaas ayuu dhahay, hooyo caawa saacaddu markay tahay waqtigaas ayaan isku imaan doonaa, waqti qurux badan ayaana wada qaadan doonaa, ayuu wiilkii dhahay. Markii la gaaray saacaddii ayuu asagoo baawurkiisa cad wato guriga ayuu imaaday. Hooyadii, qoyskii, deriskii dhammaan waxay u soo sheegtay in wiilkeeda caawa maqaayado u wado, sida inay aroos oo kale ay tahay, ayayna ugu faraxday wiilkeeda oo arkayso. Hooyadii markii baawurka u imaaday, soo gal ayuu dhahay. Baawurka ayay soo gashay. Hooyadii oo aad u labisan markii ay tageen maqaaxidii, hooyadii dhoola cadeen, farxad wax walba ayaa ka muuqdo, oo murugadii heesay iyo wiilkeedii inay dib u arki doonto ayay isla markiiba halkaas ayay ugu hareen. Markii maqaayaday tageen ayuu hooyo ii sheekay dhahday. Waxay ugu sheekaysay taariikho kala duwan, noloshooda halkay ka soo bilaabatay, heerarkii oo la soo martay, iyo inuu markuu yaro ahay inan yar oo aad u xanuun badnaay oo sidoo kale isbitaallo badan ay geysay. Markaas ayuu dhahay, hooyo waan kaa mashquulay, dunida ayaa ila tagtay ee ka raali noqo. Markaas ayay dhahday, dharkaan aan xiranahay aabbaha 19 sano ka hor ayuu dhintay. Dharkaan aan xiranahay maanta ayaan soo gashtay, quruxda iga muuqatane mar walba oo aan ku arko sidaasii si ka badan ayaan isku soo qurxi lahay, laakiin waa dareemi weysay. Wiilkii oo aad u murugaysan ayaa isla markii hooyadii iyo wiilkii way soo casheeyeen. Markii ay soo casheeyeen kadib
hooyadii waa ay soo baxeen guriga ayuu geeyey waa ay ballameen markay ballameen kadib ayay hooyadii waxay dhahday insha allah kulanka labaad cashada aniga ayaan qaadan doono inkastoo wiilku dhahay hooyo mar labaad ma kulmi doonaa isla markii ayay dhahday haa habeenkaas aniga ayaa bixi doono lacagta cashada xataa oo wax walbuu ku baxaayo aniga ayaa dhiibi doono ayay wiilkeygii hooyadii ku dhahday wiilkii waa uu iska baxay noloshiisii adduunyada iyo waxyaabihiisii kale ayuu ku mashquulay hooyadii waa ay ka war sugaysaa wiilkiina waxa uu ku hayaa hooyo minku soo wacdo inkastoo mashquulkiisa uu iska badan yahay hooyadii aad ayay u xanuunsatay xaaladdeeduna waxay noqotay xaalad halis ah isla habeenna sooma uusan soo wicin oo habeenkii cashada ayaa ugu dambaysay kadib hooyo ma barisay sidee tahay xaaladaada caafimaadkaada ma uusan dhihin halkiisii ayuu mashquulkiisii ka bilaabay hooyadii aad ayay u xanuunsatay markii dambena xanuunkii uu ku saa'iiday ayay u geeriyootay asaga oo mar kale hooyadiis uusan arkin waa qiso xanuun badan asagu waxna kama ogo oo hooyadiis aaskiisa xataa kama soo qaybgelin hooyadiina halkaas ayay ku dhimatay oo dadkii ehelka iyo dadkii kale oo deriska ahaa ayaa soo duugeen inta aysan dhiman laakiin ka hor hooyadii maadaama ay ballan qaaday wiilkana ay casho ay gey doonto ayay warqad u qortay kadibna waxa ay geysay maqaaxidii markii muddo ay ka soo wareegatay geeridii hooyadiis ayaa maqaaxidii ninkii iska lahay soo wacay hebel miya haa hooyadaa maka warhaysaa maya markaas ayuu dhaha maqaayadda ayaad caawa casho ku leedihiin maqaayadda imaada adiga iyo xaaskaaga iyo carruurtaada markaas ayuu dhahay yaa naga bixiye waad casuumantihiin ayuu dhahay maqaayaddii markuu imaaday ninkii ayaa warqaddii la tusay warqaddii markii la tusay waxaa ku qorneed hooyo waan jeclahay mar kale wiilkaygiioo inaan wada casheeno laakiin way ii suurtogeli weyse maadaama mar kale hoolahaadii adduunyada iyo mashquulkaada oo kuu bilowday waxaana booskayga caawa buuxiya xaaskaaga oo caawa booskayga joogo oo kula casheenayo aniga nasiib waan u yeela waaye mar kale inaan kula casheeyo halkii loo badnaa ayaana aaday adigana waxaan kuu rajaynayaa nolol tan ka saraysa ayayna hooyadii hadalka ku soo gebgabaysay wiilkiina cashadiisii ayuu halkaas ku cunay ayaga iyo isaga iyo xaaskiisii ayaana si wadajir u casheeyeen qisadan nuxurkeeda waxay tahay haddii qurbaha aad ku nooshahay muddo 10 sano iyo ka badan aad qurbaha ku nooshahay hooyada oo Afrika joogta aadan soo booqan maxaa dhici karo haddii meelahan kale aad ku nooshahay wadamadan kale oo Yurub oo hooyada aad soo booqan muddo 20 sano ee hooyada adigoo arkin ee dhimatane xaaladeedu waa sidee ilaahayo hooyooyinkooda booskooda ma buuxi karno ilaahayo hooyo la'aan hana dhigin waa iftiinkii ugu quruxda badnaa hooyo nuur walba oo dunidan lagu riyoodane hooyo ayuu ka imaadaa ilaahayo qalbigii hooyo cidleeyaha naga dhigin oo qalbigii hooyo diris la noqdo naga dhig qisada noocan oo kale inta ku kulmi doono waa saaxiibkiin mahad socdaal oo idin leh sidaas nabadgelyo mar walba hooyooyinkeena aan ilaalino qalbigooda si wada jirkeenu oo u qurux badnaado iyo hadafkeena adduunyada aan ka leenahay waxaa ka daawanayseen barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24